والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب ما بعد. ولا ليال كرانت نقوم تلقين كلمات دار لكن waxaan doonayaa inaan codsi ku soo jeediyo codsigaas wuxuu ku wajahan yahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda adeegsada social media. walaalayaal social media waxaa hadda aad ugu soo batay kuwa diinta islaamka ka baxay oo gaaloobay ama murtadiin noqday laakiin isu arkay inay diin kala qaateen iyo kuwa sheeganaya la diin ama inay atheist yihiin iyo kuwa islaam sheeganaya laftigooda oo hab marin habaabin ah u adeega. arrinkaas waa mid murugadiisa leh waana wax horay balla filayay dadka meel dheer wax ka eega dalkan maalintuu burburay dadkiisa laga dhex shaqaysanayo inay hab muclana ay u ballansana ma ay ogolo waan ogahay anigu hadda qaar kamid ah baan u qoray ballan iyo waliba ma garanaysaa codsi inaanu hab calan oo la wada daawanayo uga wada hadalno jawaab ilaa hadeer waan kala ahay waan soo boosti garayn doonaa xilliga aan u qoray iyo inta aan jawaabta sugayo. marka walaalayaal aqoonta hal ixtiraamo shayga aanad garanayna hal iska daayo. waxaan xasuusanayaa oraah uu lahaa Abu Bakr Siddiq oo garanaysan mansilada uu kaga fadhiyo ummadda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu oran jiray ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni idha qultu ala Allah ma lam yaqul. dhulkay sidaya waa kuma samada say haraynaysaa waatee haddaan alle ka idhaahdo waxaan oran yani sidoo arrintaas ula weyn tahay alqawlu ala Allah bighayri ilmi dunubta waaweyn kabaa'irtuna ku jira wad garanaysaa. qofku shayga aanu garanaynin waa inuu faraha kala baxay. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa maalin maalmaha kamid ah qaar saxaabada kamid oo Madiina joogu soo maray iyagoo oo bacriminaya geedo timira beer timireed. markaasuu wuxuu ku yiri hadaydan xitaa talaalin oo aydan bacrimin way iska soo baxaysaa saw iska daayeen hadhow xilligii baa la gaaray la guran lahaa midhaha kadibna waxay dhashay midho dhaaray oo aan macna lahayn yani tamar radii ah. markaasuu ku yiri Nabi sallallahu alayhi wasallam maali nakhlikum maxaa ku dhacay geeda timireedkiini waxay ku yiraahdeen adaa saa nagu yiri anana markaa waan iska daynay talqiixiyaan ku sameyn jirnay. markaasuu wuxuu yiri antum a'lamu minni a'lamu bi umuri dunyakum idinka iga yaqaana ama yaqaana arrimaha duuladiina ku saabsan yani shaygan sheekhan waxa weeyaan waan u duceynaynaa runta uu ka sheegay muslimiin badan baa arrimahan inkira markaan soo qaadano xadiiskan oo yiraahdo waa been waxba kama jiro afkiisa ayuu ku fashilay Nabi Muhammad in uu wax iska camirin jiray wax uusan cilmi lahayn u lahayn uu iska sheegi jiray. qisada sheekhan uu ka sheekeynayo hadda waxay ka dhacday Carabaha ay ka dhacday waa xadiis saxiix weeyaan in dad beer falanayay uu nabigu u yimid uu ku yiri iska daay maxaad ka falaysaan faraha ka qaada ayaguna ay u maleeyeen de waa nabigii faraha ka qaada macna nabigii baa saa yiri ay beerti faraha ka qaadeen kadibna beerti sidii ku baabaaday. dadkii baa u soo yimid oo yiri maxaad noo waashay nabi allow markaasuu ku yiri war nagala taga baasha adinka naga yaqaane marka duqruntii xariif aad weyn buu ahaa qof nabi ahna runtii kama suurtoobi karayso ficil noocaas oo kale ah dad inuu waalo wax uunan cilmi u lahayn uu dad u sheego runtii waa fashil aad iyo aad u weyn. anigu waxaan ilaa hadda garan la'ahay dadka muslimiinta maxaa ka khaldan caqligooda maxaa ka khaldan waxyaalaha noocan oo kale ah ee isfashilinaya maxaa buugtooda ku qoray. runtii markaad akhriso hadda saxiix Bukhariga
qosol baa ku dilaya waxyaalaha ku qoran waxaad leedahay dadkan maxay yihiin say u fakeraan dadkan macnaha waxyaalahan foosha xun ee facshirka ah ee ceebta ah siday meesha ugu ogolaadeen inay ku qornaato qof ogolaanaya ceebtiisa meel inay ku qornaato ma jirto hadii jeer waxay sheegaan muslimiintu inuu nebigu naxariis badnaa nin fiican ahaa haddana waxaa ku taala xadiisyo fara badan oo dad la laynayo dad la qalayo dad la bireynayo duq dhan oo laba geel inta lagu kala xiray la kala jiiday oo la kala gooyay baa ku taala marmar waxaa lagu leeyahay wuxuu ahaa nin sharaf badan oo nadiif badan haddana waxaa ku taala inuu uskag badnaa injir lahaa wasaq lahaa marka aniga waxyaalaha aadka aan ula yaabaa waxay tahay sababaha keenaya may waxaan ma arkaan miyaa caqligooda xagee ayuu jiraa tan kale ninkan aan aadka ula yaabanahay waxay tahay beenta uu sheegayo uu leeyahay nimankii yaan ballansaday oo la ahay hadda saaxiib qolal badan baa jira meelo badan oo lagu sheekaystaa jira waa kaa sugaynaa caddayntii ciddaad u qortay iyo ciddii aad la cosatay anaa hadda kaa ballan qaadaya anytime oo diyaar tahay soo diyaar garow saaxiib iyadoo live ah haddaad rabto qol baan tegaynaa si walbaad diyaar u tahay soo diyaar garow saaxiib mana wanaagsana meelaha mediaha inaad been aad la soo hor istaagto